codkiisu layahay muhiim komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay habeennimadii xalay ahayd ay si rasmi ah soo gabagabeeyeen wajigii koobaad ee diiwaangelinta codbixiyayaasha oo maalmihii u dambeeyay ka socotay guud ahaan gobolka Awdal waxayna shaqaalihii iyo agabkii lagu shaqeynayay xalay ay si rasmi ah ugu soo guriyo noqdeen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaana ka warbixiyay oo sheegay inay si nabadgelyo ah u soo dhamaatay komishaneer Cabdifataax Ibraahim Xasan waxaana uu yiri labadii bishii 12aad 2020 waxaanu ilaahay ugu mahadinaynaa in ay inoo bilaabantay soo xidhitaankii gobolka Awdal goobihii diiwaangelinta ee dib looga furay sida aad arkaysaan imika waxay ku soo hoyanayaan xaruntii loogu talagalay inay ku soo hoydaan oo ay soo guriyo noqonayaan agabkii shaqaalihii ciidamadii amniga oo dhammaantood ka howlgalay hawshaas sidii ay si habsami ah ugu socon lahayd geesta kale waxaa saaka la kala diray shaqaalaha iyo gaadiidka kuwaas oo ku noqon doona goobaha loo sameeyay muddo kordhinta ee ay diiwaangelinta codbixiyayaashu ka sii socon doonto waxaana ka warbixiyay mar kale komishaneer Cabdifataax Ibraahim Xasan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa kale waxa maanta guud ahaan gobolka Awdal inooga howlgalaya goobo xuduudaha ah oo kooban oo 3 cisho ka howlgalaya goobaha ay ka howlgalayaan waxa weeyaan Garbahaadley Gorayo Cawl Aashacado Cunaqabad Xariirad iyo Looyacado lixda goobood waa gooba hara ku sii noqday markii la arkay culayska saaran xuduudaha oo ay sii joogi doonaan maanta berri iyo sahan dambe 3 cisho ay ka sii shaqeyn doonaan sida la socotaan sidoo kale waxa maanta ka bilaabmay gobolka Awdal wajiga labaad ee aynu ugu talagalay inaynu ku xoojino isdiiwaangelinta dadkii aan hore isu diiwaangelin kuwaas oo ahaa dadkii daada qaangaaday iyo dadkii aan hore u helin fursad iyo dadkii kaarku ka gubtay goobahaasi waxa ay ka howlgali doonaan gudaha magaalada Boorame Ardaale Hanuuninta Sheekh Cali Jawhar dugsiga Qoorgaab iyo taraafikada ama qorsheynta qofba sidoo yaqaano shanta gooboodna waxay ka howlgali doonaan gudaha magaalada oo isla maanta hawshooda bilaabi doonaan goobaha aynu soo sheegnay ee ay ku sugan aynu ka hadalnay waxay u adeegi doonaan dadkii aan fursad u helin inay iska diiwaan galiyaan goob kasta oo ka mid ah degmada Boorame gudaheeda sidoo kale waxa jiri doona goobo warwareegaya oo ay degmooyinkuna leeyihiin oo meelo gaar ah ku hanka doona oo lughaye waxay ku hanka doonaan Garbadadar Geerisa Gargaara iyo Lughaye halka ay Saylac ku hakan doonaan oo imikaba uu ku sugan yahay kidkii uu gaaray ama sanduuqi gaaray Habaas Xariirad Cali Weeci iyo Saylac iyo Fiqi Aadan goobahaas isagana isaga daab qaadi doona muddada 7 cisho ah ee soo socda halka degmada Bakina ay goobtaasi ay ka howlgali doonto Dila Cali Xayd iyo Baki sanaaduuqda aan sheegay ee goobaha ka howlgalaya maalin ayay ka howlgali doonaan ama meelaha qaar kood 2 cisho duruuftooduna kolba waxay sida safarka teeb isla bedeli doonaan marka ay u timaado iyadoo gudoomiyaasha degmada komishanka ee heer degmo inaan la socodsiin doono goobahaasi sida ay u shaqeyn doonaan wixii macluumaadana ay runtii ka heli doonaan ayaanu ugu talagalay in iyaguna ka sii shaqeeyaan waa waji isaguna kooban oo dadka haraaga ah loogu talagalay goobaha dambe ee aan sheegay ee wajiga labaad ee ahaa kuwa ku sii haraya iyaguna degmada inay ka shaqeeyaan waxay leeyihiin arrimo u gaar ama sifaad gaar ah wuxuu dooran karaa goob kasta oo ka mid ah degmada ha noqoto min daraf ilaa daraf waxa ay u saamaxayaan goobta haddii uu tago inuu dooran karo oo odhan karo goobtaas ayaan isu diiwaan gelinayaa inaan kaarkayga aan ka helo aan kana codeeyo Zakariya Cabdishaaq Faarax Zakariya Saxane telefishinka caalamiga Horyaal TV magaalada Boorama